maanta oo isniina oo bisha September isniintii isbuuca u horeysay ah sidii ballanta noo ahayd waxaan hadal jeedintii aan ka jeedinaynaa magaalada Muqdisho oo ayaamahan aan howlo shaqo u joognay sida aan hore u ballan qaadnay waxaan rajaynaynaa in meel kastoo aan joogno fariinta ku aadan bil walba isniinta ay joogto noo noqoto haddii Ilaahay idin ka dhigo dabcan isbuucan waxyaabaha badan oo kala duwan baan ka hadli doonaa oo ugu muhiimsan tahay xaaladda Puntland iyo muddadii hadda u dambeysay iyo wixii qabsoomay iyo xaaladda siyaasadeeda Soomaaliya iyo Muqdisho kulamadii aan hadda u joognay iyo kuwii Dhuusamareeb intaba sida aad la socotaan dabcan oo xogaha aad mar walba kala socotaan warbaahinta Puntland iyo warbaahinada kale ee madaxa bannaan bishii u dambeysay iyo labadii bilood u dambeeyay inta badan howlaha waxaan xoogooda ka socday gobolka Mudug oo aad ogeedeen in shaqo aad u fara badan oo ku saabsan dhinaca amniga dhinaca dhisidda hay'adaha dawladda iyo kormeerka waxqabadka dawladda iyo baahiyaha jiraba muddo badan lagu hawshanaa waxaa Ilaahay mahadiisa in magaalada Gaalkacyo oo runtii muddooyinka u dambeeyay amni xumo aad u fara badan ay ka jirtay kala dambeyn la'aan dhinaca bulshada iyo howlaha dawladda ay ka wado ay ka jirtay muddadii faraha badneed aan joognay waxaa lagu guuleystay in dib loo habeeyo guud ahaan nidaamka amni iyo maamul ee magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxaan uga mahadcelinayaa guddigii tirakoobka ciidamada oo soo idleeyay ciidamada gobolka Mudug howlihii ay ka wadeen oo si qurux badan ay ugu guuleysteen inay shaqadooda u qabsadaan waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha sarsare ee gobolka Mudug hogaaminaysay oo ciidamadaas muddada dheer runtii hoggaanka u ahayd oo haddana si hufan oo wanaagsan shaqadii guddiga uu waday ula qabtay waxaan rajaynayaa maalmaha u soo socda mar haddii tirakoobkii iyo biometricgii iyo maaragtay kala saaridii ay dhammaatay waxaa ku xigi doona inay ahaan doonto tababaro sidaas la adligeedna ay noqon doonaan ciidamo la jaanqaada marxaladda cusub ee dalku u baahan yahay oo aan nahayn dhinaca dabeecadaha cusub cadawiyada cusub ee yimid oo ugu muhiimsan yihiin argagixisada iyo dadka mukhaadaraadka ka shaqeeya iyo dadka tahriibayaasha iyo nidaamka aan ogoleyn sidii iyagana loola dagaalami lahaa iyo sidii ay bulshada guud ahaan gobolka iyo Puntlandba oo mararka qaarkood khilaafaad beelo ay soo dhexdhacaan in ay gaalin weyn ka geystaan waxaa runtii xusid mudan safarkii dheeraa ee galbeedka Mudug aan ku aadnay laga bilaabo Xero Jaalle iyo Galdogob iyo Saaxo iyo Bursaalax iyo Dar es Salaam iyo meelaha oo dhan deegaanadaas oo runtii deegaano aad u balbalaaran oo ku teelsan qaybtood xuduudda qaybna gudaha Puntland dhinaceeda galbeedka Mudug ah waxaan aad ugu faraxsanahay kulamadii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee bulshada aan la yeelanay inaan u dhowaanay dadkii inaan baahiyahooda soo aragnay inaan runtii dareenkooda dhabta ah soo qaadnay hay'adaha dawladda ee arrimahaas aan arkaynay runtii ila socday wasiirada ila socday waxaan aad uga mahadcelinayaa sida degdega ay dawladda uga jawaabtay magaalada Galdogob in ciidamada booliiska kuwa hore tababar la geliyo ciidamo booliis oo cusub la geeyo in maxkamadihii dib loo howlgeliyo oo maaragtay hakad uu ku jiray in dawladda hoose shaqadeedii la dardar geliyo in dhammaan xarumihii dawladda ee markaa lagu arkay habacsanaanta dhinaca maamulka ah tayadooda kor loo qaaday sidoo kaleeto customka Turdibi oo runtii ah custom aad muhiim ugu ah Puntland oo muddo badan laga shaqeynay iyadana lagu guuleystay in customkaas dhinaca Etoobiyana ay maaragtay howlwadeenadii shaqada qaban lahaa ay keenaan in wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda iyo arrimaha gudaha ay shaqo badan ka wadaan waxyaabaha u waaweyn oo ka taagnaa magaalooyinkaas Galdogob iyo Bursaalax waxaa ka mid ah xagga dhismaha golayaasha deegaanka oo hadda guddigii maaragtay isugu jira wasiiro iyo baarlamaano ay joogaan Bursaalax kuna sii socdaan Galdogob ay halkaa ka wadaan siday bulshada halkaa degan ay u wacyigelin lahaayeen wanaaga iyo muhiimadda ay leedahay golaha deegaanka ay halkaas ugu sharxi lahaayeen
bursaalax oo markii ugu horreysay yeelan doonto golo degaan iyo golihii degaanka oo galdogob oo intii puntland jirtay inta badan ba lahayd laakiin hadda uu maqan yahay iyadana sidii dib loogu soo celin lahaa waxaan aada u rajaynayaa bulshada degaanadaas ku dhaqan in ay shaqadii wanaagsanayd ay dowladda la qabanayeen inay sii laabaan khaasatan waxaan jeclahay inaan halka uga mahadceliyo isimada iyo nabadoonnada iyo waxgaradka kale ee runtii gacanta ka geystay muddadii aan halkaas soconnay sidii ay maaragtay gacan uga geysan lahaayeen sidii dowladda howlaheeda ugu fududeyn lahaayeen annagana sida aan ballan qaadnay waxaad markhaanti ka tihiin waxyaabihii aan ballan qaadnay inaan fulinay oo tallaabooyinkii aad naga filayseen aan qaadnay waxaan ka mahadcelinayaa kulankii ka dhacay galdogob ee mahadcelinta iyo soo dhoweynta ahaa ee isbedeladii lagu sameeyey saldhigga booliiska galdogob maxkamadda maxaa la yidhahdaa xogayaha dowladda hoose iyo jagooyinka kaleete u baahnaa in runtii tabashadu ka jirta in wax laga qabto oo runtii dowladdu ay wax ka qabatay waxaan aada ugu rajo weynahay golaha degaanka oo ah qodobkii ugu muhiimsanaa isagana markuu dhismo mashaariicda kale ee wax yarneed arrimahaas ku saabsan xagga horumarinta magaalada inay hirgasho magaalada saaxo oo runtii magaalo daraf ah booqashadeeni runtii waxaan aada uga mahadcelinayaa dadkii aan halkaa ku booqanay sida wanaagsan oo diiraneed ay noo soo dhoweeyeen oo kalsamida leh waxaan ku faraxsanahay mashaariicda ka socotay galdogob saaxo oo ay qeybna qabatay bulshada halkaa degan qeybna ay dowladdu qabatay runtii waa magaalo koraysa oo si wanaagsan shaqadeeda u socoto waxaan rajaynayaa in xarumaha dowladda ee hadda ka maqnaa aan soo aragnay sida ugu dhaqsaha badan iyagana in loo hirgeliyo waxaa aada muhiim u ah isbedelka degaanadaas ka socda khaasatan magaalada gaalkacyo oo hadda nabadgelyo lagu naaloon kara ka jirto runtii waxaan iyadana rabaa inaan halka uga mahadceliyo maamulka galmudug gaar ahaan maamulka galmudug ee gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo ee dhinaca galmudug oo runtii wada shaqeyn qurux badan puntland ay ka dhexayso oo si wada jir ah ay uga wada qayb qaataan sidii ay nabadda u xasilin lahaayeen nabaddiidka uga soo meel u jeesan lahaayeen sidoo kaleetana dadka mukhaadaraadka iyo tahriibta ka shaqeeya oo ah meelaha hooyiga ay ku dhuuntaan dadka qaswadayaasha ah ay meesha uga saari lahaayeen waxaan ku faraxsanahay in jidadkii xirnaa hadda dhismihii ku socdo waxaan ku faraxsanahay magaalada gaalkacyo in guryihii muddada khilaafaadka labada maamul ama labada degaan ka jirtay darteed u dayacnaa in hadda dayactirkooda iyo dhismahoodii la wado iyo degaameyntoodii waxaan ku boorinayaa shacabka reer gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug fursadda qaaliga ay maanta haystaan oo runtii ay kusoo afjareen 30 sano oo khilaafaad iyo kala shaki ahaa inay sii xoojiyaan aysan u ogolaanin cid mar dambe waxyeelaysa odayaashii iyo waxgaradkii iyo isimadii ka qayb qaatena waxaan jeclaa inaan halka uga mahadceliyo runtii howlahaas waxay ahaayeen howlo muhiim u ah dowladda puntland iyo guud ahaan soomaaliya maadaama gobolka mudug uu yahay gobolkii bartamaha soomaaliya gobol xasaas uu yahay waxaa sidoo kaleeto runtii muddadii u dambeysay dowladdu ay aada ugu howshanayd sidii canshuuraha kor loogu qaadi lahaa dib loogu habeyn lahaa mashaariicda kaabayaasha khaasatan jidka u dhexeeya boosaaso iyo kalabayr oo dib habeyn ka socoto iyo daraasad lagu sameeya meelaha kale ee jidka uu ka burbursan yahay sidoo kaleeto jidka gaalkacyo garoowe oo runtii shaqadiisu isaguna meel fiican marayso mashaariic aada u fara badan oo isugu jirto iskuullo xarumo caafimaad iyo ceelal ayaa runtii muddadii hadda bisha u dambeysay ka hirgalay oo runtii dhammaan ku baahsan gobolada puntland qeybaheeda kala duwan sidoo kale waxaa mashaariic dhinaca caafimaadka iyo kaabayaasha aasaasiga suuqyada iyo waxyaabaha la halmaala iyo magaalooyinka ka socdaan magaalooyin aada u fara badan oo ay ka mid tahay magaalada dhahar oo ay mashaariic ka socoto waxaa meelo badan ay ka socdaan magaalooyinka kaleeto buuhoodle waxay ka socdaan boocame iyo magaalooyin aada u fara badan oo gobolka sool ka tirsan iyo gobolka sanaag waxaan runtii muhiimad gaar ah siin doonaa haddii ilaahay idmo marxaladda soo socota wadada lafa goray maaragtay caluulo gasha oo dayactirkeedii inta badan gacanta hadda lagu hayo sidii loo bilaabi lahaa iyadana meelaha muhiimka ah wey gobolka gardafuul oo runtii gobol aada u khayraad badan laakiin caqabada dhinaca wadooyinka ay ka jiraan intii tabarteenna waxaan jecelnahay inaan kaalin weyn ka qaadano
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada reer Puntland oo runtii isku duubni muujisay. waxaan u mahadcelinayaa guddigii taakulaynta iyo khasaarihii ka soo gaaray qardho daadadkii sida wanaagsanayd oo hufnayd wejigii koowaad deeqihii soo gaaray wejigii labaad ay u qaybiyeen wejigii koowaad oo raashinka hawaa la qaybiyey wejigii labaad oo ganacsatadii ku barakacday iyo dadkii kale waxyeelada gaaray sidii wax loo gaarsiiyey ee hufnayd dadkii shaqadaas hayeyna waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in dadaalka ay bixiyeen oo aan ogahay inuu waqti aad u adag ahaa muddo badanna ay geliyeen si loo helo raadraac fiican iyo loo helo hadda kadib in dadku ku kalsoonaadaan dhaqaalaha ay ku soo tabarucaan inay si hufan oo hagaagsan ay u baxaan. waxaan aad u rajaynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeedba inay ka qayb qaataan waxyaabaha horumarinta iyo masiibooyinka dhacda intii karaankooda ah. waxaan kale oo aad ugu boorinayaa inay aad u dabagalaan dhaqaalaha ay soo bixiyaan in uu si habsami leh oo hufan u baxo. annagana waxaan ballan qaadaynaa in dowlad ahaan maamul annagu aan gacanta ku hayno aysan ka suurogeli karin suuroobayna in isbeddel iyo maaragtay wixii loogu talagalay meesha loogu talagalay ay dhicin haddii ay maqlaan ama arkaan marka laga tago waxyaabo aanan la hubsan inay noo soo gudbiyaan si aan tallaabada ugu habboon ka qaadno. cidna ka ogolaan mayno in la musuqmaasuqo hantida dowladda iyo midda dadku bixiyeen labadaba waa hanti dowladeed ee dadka loogu talagalay. waxaan rajaynaynaa wax walba dadkii loogu talagalay inay sida ugu habboon oo ugu habsami leh ay gaaraan. dabcan deegaanada roobab hordhaca ayaa ka da-ay magaalooyinka qaybtood. waxaan rajaynaynaa inta dhibanna inay di'i doonaan oo deyr aad u wanaagsan ay dhici doonto. waxaan u rajaynaynaa shacabka Puntland barwaaqo iyo horumar deganaansho iyo midnimo. runtii xasilooni ayaa ka jirta. dhinaca amniga aad buu isu soo tarayaa. duruufaha dhaqaale ee COVID-19 ku keenay waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay adkaysi badan u sameeyaan. waxaan rajaynayaa in laga bixi doono dhib kasta oo hadda jira dulqaad la muujiyo isku duubni la muujiyo. dowladdana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay wax yar ee soo gala maadaama hoos u dhac dhacay inaan inta badan aan ku bixino ilaha muhiimka u ah dowladnimada iyo socodkeeda siday u kala muhiimsan yihiin. waan rajaynayaa in waxyaabo badan oo dadku tabayaan in ay mararka qaarkood dhaliilo ka muujiyaan laakiin aan u sheegaynaa in dhaqaaluhu aad ciriir ugu jiro dulqaad u muujiyaan wixii maanta la heli kara ay ku xisaabtamaan wixii berri la heli karana ay waqtigeeda ay la socdaan. waxaan rabaa iyadana inaan halka fariin ka diro. beryahan waxaa aad loo hadalhayay baraha bulshada in maxkamadda darajada koowaad ay xukun riday ku saabsan kufsi ka dhacay magaalada Garowe oo maxkamadaas runtii xukunkii ay riday dad badan ay cabasho ka muujiyeen dad badan ay siyaabo kala duwan cabashada u muujiyeen. waxaan rabaa dadka reer Puntland inay horta ku kalsoonaadaan maxkamadahooda iyo hay-adaha cadaaladda. dadku waa sax kalsoonidu macnaheedu maaha in waxa khaldan laga aamuso. waxaan rajaynayaa maxkamadahana ruuxadoodu in ay mas-uuliyadda ay qaadaan ilaahay hortiisna uga baqaan bulshadoodana uga baqaan in la xisaabinayna ogaadaan. waxaan rajaynayaa garsoorayaasha aan ogahay duruuf adag inay ku shaqaynayaan go-aanada ay qaadanayaan inay noqdaan go-aano sax ah oo cadaalad ku dhisan oo sharciga ku qotoma. waxaan kaloo aan rajaynayaa garsoorayaashu haddii go-aan ay gaareen laga cabtay in ay dadka u sharaxaan go-aanka ay qaatay iyo qodobada ay ku fadhiyaan. waxaan kaloo dadka u sheegayaa khaasatan ehelada marxuumadda dacwadeeda socotay maxkamadda hadda dhacday waa maxkamaddii darajada koowaad. maxkamadda darajada koowaad markii ay dhacdo ama xukunkaasi sax ahaado ama khalad ahaado si qofka loo shaafiyo waxaa jirta racfaan inay waddada sharciga maraan intii ay idaacado tegi lahaayeen oo hadli lahaayeen ama xukun dhacay ay wax ka sheegi lahaayeen weli fursad bay hayaan. waxaa la rabaa inay racfaan qaataan. racfaanka ruuxadooda haddii ay ku qanci waayaan maxkamadda sare ayaa jirta. maxkamadda sare wixii xataa ka khaldama madaxweynuhu waa soo gaari doontaa. waxaan rajaynaynaa in dadkeennu ay bartaan nidaamka cadaaladda. dowladduna cadaaladda khaasatan dowladda qaybta fulintu faragelin inay cadaalad ku samayso sax ma aha laakiin dushaan ka eegeynaa oo haddii aan aragno in uu dhaco khalad maxkamadaha darajooyinkeeda lagu sixi waayo waqtigeeda ayaan ka hadli doonaa. lakiin waxaan rajaynaynaa inta processku socdo in sabir la yeesho dulqaad la muujiyo waxa khaldan
wadada lagu saxo loo maro oo maxkamad haddii ay go-aan soo saarto go-aankaas garsooruhu wuxuu ku qaatay dee isagaa ka jawaabi doona oo sheegi doona laakiin dadka go-aankaa loo riday hadday isku qancin waa bini aadanka oo dhan baa dabeecadiisa sidaas ah hadduu ku qanci waayo waxaas ama saxa loo xukumo ama khalada loo xukumo waxaa loo furay inay racfaan qaataan oo mar labaad ay dacwadii ay gudbiyaan oo maxkamadda maxkamad ka sarreysa ay dacwadii gasho ilaa 3 xeer ayay maxkamadaheenu ay soconayaan marka waxaan rajaynayaa iyadana in sidaa loo dareemo dadkuna dowladnimada uu runtii maaragtay u nuglaado sidoo kaleeto warbaahinta waxaa la rabaa waxyaabaha ay baahinayaan inay noqoto xirfad meediyaha ah kuna salaysan habka dawliga uu u samaysan yahay oo aysan noqon ra'yiga qofka iyo sida ay la tahay arrintaasna waxaan rabaa guud ahaan inaan bulshada intaa u sheego waxaan rajaynayaa keeskan inuu la muuqdo keesaskii horeeto sida keeska caasho oo uu ku soo dhamaado si dadweynaha iyo dadkii qofkaas dhibanaha ah ehelka u ahaa iyo kuwa dhibka geystaba ehelkooda inay si fiican uga qancaan waxa dhaca halkaas ay noqoto maxkamadeenu maxkamad lagu barto hufnaan iyo cadaalad maalin dhaweyd waxaan isbedel ku sameynay maxkamadaha ciidamada iyo maxkamadaha maaragtay ciidamada iyo dambiyada culus saad ogtihiin 4 garsoore oo ka mid ah madaxdii maxkamadaha ciidamada ayaa xiran oo lagu xiray isdabamarin iyo khaladaad ay sameeyeen maxkamadaha ciidamadu way ka duwan yihiin maxkamadaha madaniga ah maxkamadaha ciidamada oo dowladda magacaawda isla markiina dowladda tallaabo ka qaadi karta laakiin hay-adaha madaniga ah habkaa ka duwan bay leeyihiin oo hay-adaha adeegooda garsoorka ayaa xilalka garsoorka ka qaada una magacaaba dowladduna markaas decreeta kusoo saarta marka waxaan rabnaa processka labadaba in si sax loo maro macnaheedu maaha kuwa madaniga ah haddii ay khalad galaan sida kuwaan ay sameeyaan oo kale inaan tallaabo laga qaadi karin dowladdu iyadoo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda iyo shuruucda dalka waxaan rajaynaynaa ciddii ay ku caddaato in ay ku xadgudubtay sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla cid sharciga ka weyn ma jirto inay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto marka waxaan rajaynayaa garsoorayaasha iyo maaragtay maxkamadaha kala duwan ee dalka jooga inay arrimaha ku baraarugaan oo dadka ay runtii si cadaalad ugu shaqeeyaan haddii dadku si khaldan u fahmeen habka cadaaladdu u shaqaysana waxaan rajaynaynaa in ay u adeegsadaan warbaahinta oo dadka ay wax u sharaxaan sida wax u socdaan oo ay dadka ka kaafiyaan sida ay wax u socdaan iyo xaqiiqadu siday tahay guud ahaan waxaan rajaynayaa arrimaha puntland oo inta badan laga warqabo intaas aan ku soo meeriyo waxaan kalaan rabaa inaan u galo arrimaha aadka aan u baahannahay inaan ka galno siaad ogtihiin muddadii hadda u dambeysay waxaan ka qayb galnay shirarkii dhuusamareeb 1 iyo 2 oo runtii aan uga mahad celinayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed qorqoor iyo madaxweynayaashii kaleeto dowladaha xubnaha ka ah galmudug jubbaland iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed shirka aan ka soo wada qayb galnay oo runtii shirkaas uu ahaa shir taariikhi ah oo muddo 2 sano ah markii ugu horeysay ay isu yimaadaan madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah oo runtii dhuusamareeb oo markaas curdin ahayd oo dowladda markaas bilo kooban jirtay 2 bilood muddo yar aad u kooban jirtay oo runtii diyaar garow iyo waqti fiican aan haysan in muddo 2 maalmood gudahood ah ay ku aqbaleen inay shirkaas qabtaan shirka dhuusamareeb lagu qabtay macnaha marka laga tago inay dowladuhu is arkaan wuxuu xabaarsanaa macno ka weyn oo ah in maamulka curdinka ahaa ee galmudug ee markaa dhismay iyo madaxweynaha qorqoor oo runtii doorashadiisa kadib soo afmeeray khilaafaadkii ka dhashay doorashooyinka dalkana ku soo bixiyey deegaanka galmudug oo dhanna ku soo wada bixiyey socdaal dowlad runtii tayo leh oo isku dheela tiran oo dadkii taageersanaa ee dadka soo horjeedaba uu ka wada qaybgeliyey oo ahaa dhaqan aan inta badan siyaasadda Soomaaliya lagu aqoonin runtii waxaan aad uga mahad celinaynaa in ay arrintaas hirgashay
arrimahana dhiirigeliya inaan dhuusamareeb annagana aan xoojino oon tagno qayb weyn taasaan ka ahayd runtii tegiddii shirkii lagu qabtay dhuusamareeb 1 annagana wuxuu noo kordhiyey kalsooni ku saabsan inaan shaqooyinkeena meel kasta ku qabsan karno galmudugna wuxuu u abuuray macno aada u ballaaran oo ah in ay istijaabiyaan inay xajmiga intaa la eg ay xambaari karaan iyagoon weli aan diyaar garowgii la rabay iyo waqtigii la rabay aan la siin duruufo runtii doorasho iyo khilaafaadna markaa ka soo baxay shirkaasi wuxuu nagu dhiirigeliyey markaan aragnay sida habsamida leh oo wanaagsan ay u maamuleen iyo sida wanaagsan uu runtii martisoorka iyo amniga lahaa ay u agaasimeen waxaan haddana ku baaqnay shirkii dhuusamareeb 2 in isla magaalada lagu dhigo oo runtii ay mudnayd magaalo u baahnayd in maaragtay kor loo soo qaado oo dadkeeda iyo dowladdeedaba ay u baahnayeen garab istaag dadka Soomaaliyeed inay maaragtay shirarka iyo kuwa kale ku qabsadaan keenii mid ka culus ayaa lagu qabtay oo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii inay ka soo qayb galaan iyo xildhibaano aad u fara badan runtii si habsami leh ayuu kaana u dhacay si wanaagsan oo annagu aan keenii hore inta aan hayn la yaabanayn sida ay magaaladu ay noo martigelin karta ama noo qaadi kartee markii aan nidhi kuwaana aan kusoo darno oo weliba wufuud aad u fara badan ay la socotay markii dambe waxaa noo soo baxday dhuusamareeb xajmiga aan ka malaynin inay ka weyn tahay dadkii oo dhan inay si wanaagsan ay u martisoortay cid walbana meeshii ay munaasabkeeda ahayd ay dejisay dhinaca martisoorkuna uu noqday kii ugu sarreeyey oo dadkaas ay la kulmeen runtii kulankaasi kala aragti duwanaan muddo dheer socotay isfaham darro muddo badan taagleyd kadib wuxuu uu ku soo idlaaday in isfaham laga gaaro nidaamka ugu weyn oo loo yimid oo dhinaca doorashada oo saldhig looga dhigay kii dhuusamareeb 1 lagu gaaray oo ah doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo si la isla ogol yahay inay u dhacdo tuugiina sidaa si lamid ah ayaa ka soo baxday runtii markuu noo dhammaaday oo si farxad leh uu ku soo dhammaaday oo xafladdii xiritaanka ee weynayd inkastoo madaxweynuhu uu ka maqnaa ay dhacday waxaa annaga iyo Soomaaliya oo dhanba gashay diile aad u wanaagsan inay Soomaaliya hadda ay wadadii saxda ahayd ay qaaday oo wax kasta oo dadka u dhaxeeya in miiska wada hadalka la wada fariisto qof walba aaraadiisa dhiibto qofkuna uu wixii markaas uu ka tanaasuli karo ka tanaasulo waxa habboon u qaato nasiib darro waxaa dhacay isbedel siyaasi ah oo runtii ku yimid dowladdii dhexe oo dhinaca baarlamaanka ka yimid oo ra'iisul wasaarihii uu meesha ka baxay muddadaa kadib dowladda Puntland waxa ay runtii u arkaysay maadaama arrintaas ay dhacday in ay ka weyn tahay arrintii aan annagu u soconay marka hore shirkii aan u ballansanayn 15 Agost arrintaas inay ka muhiimsan tahay maadaama xukuumaddii dhacday ra'iisul wasaarihii meesha ka baxay dareenkeenu wuxuu ahaa howlaha sida u kala muhiimsan yihiin ayaa loo qaban doonaa oo ah in marka hore xoogga la saari doono in ra'iisul wasaare la magacaabo xukuumaddii la dhiso si howlihii annaga aan marka hore u ballansanayn oo ah sidii dalka doorasho u geli lahaa waqtigaysan in hay-addii ugu muhiimsanayd ee fulinta oo dhammaystiran ay markaas shaqada nagala soo qayb gasho si shaqooyinku ay noogu fududaadaan dareenkaas anagu qabnay laakiin dareenka dhinaca kaleeto ee dowladda dhexe sidaas si ka duwan ayaa runtii u muuqanaysay oo aanan ahayn inay tahay sida saxda ah oo hadda ay maaragtay arrinta lagu xalinayo arrintaas runtii waxa ay dhashay in annaga kala aragti duwanaantaas aan u baahanay waqti aan isaga qancino inay sidaasi aysan dhib u keenaynin wixii aan ka wada hadlaynay waxaan aad iyo aad runtii uga hadalnay inay habboon tahay in ra'iisul wasaarihii lasoo magacaabo waxaan aad uga hadalnay in sidoo kaleeto maaragtay waxa lagu heshiinayo ay noqoto go-aan siyaasadeed oo aan waqti dheer jiitamaynin oo dib waqti badan in la isugu yimaado aysan ahayn maadaama mararka qaarkood go-aankaas aan meesha ku gaareen uu u ekayn go-aankii kama dambaystaha oo hay-ado kaleeto dib ugu noqon doono arrintaas runtii ra'yi iyo dood baan ka qabnay aan rajaynaynay inta aan madasha la isugu imaan in si hoose loo xaliyo sida dabeecadaha siyaasaddu ay leedahay ama habka khilaafaadku markay jiraan aragtiyeed loo xaliyo ay tahay nasiib darro ma aysan saas dhicin 15 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha
galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay tageen magaalada dhuusamareeb waxaan runtii muddadii ay joogeen annaga oo doodeeni weli ay furan tahay la qumanaatay inay iyagu maadaama 15kii annagu aanan ku imaanin madaxweyne axmed islaan isagana xanuun dartii u maqnaa ayna u weheliyeen inuu aragtiyaha qaybtooda wax ka qabay iyadoo arrimihii wax laga tabanaya aan xal buuxda loo helin maadaama ay meesha yimaadeen waxaa la qumanaatay inay shirkoodii furtaan oo iyagu ay maaragtay ka wada hadlaan sida ugu habboon ay u arkaan inay maaragtay loo soo gudbin karo aragtidaasna runtii dee idinka oo dhanna wayd aragteen aragtidii ka soo baxday jubbaland iyo puntland shir ay ku yeesheen garoowe runtii aad bay u soo dhaweeyeen inay ra'yigooda cabireen waxaan kaloo annagana aan soo dhaweynay in inta annaga markaa noo muuqato oon aanan shirka aan la imaanin in ay habboon tahay in haddana laysugu yimaado oo mar labaad miiska wada hadallada lasoo fariisto oo wixii dhiman la dhammaystiro safarkeena muqdisho saldhigiisu wuxuu ahaa kaas waxaan runtii uga mahad celinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo markii hore jeclaa inuu garowe noogu yimaado laakiin codsi aan ka codsanay inaan magaalada muqdisho nimaano oo ku habboon in isagana aan isku arkarno madaxdii kaleetana aan isku arkarno meesha ugu habboon oo shirkaa lagu soo gebagabayn karana wejigiisa kaleeto ay halka tahay runtii sidaasaan u nimid muddadii hadda aan joognay waxaan aragnay madaxweynaha dhowr jeer waxaan aragnay madaxda kale ee wasiirada iyo xildhibaanada labada aqal xubno ka mid ah waxaan booqanay aqalka sare waxaan aragnay siyaasiyiin kala duwan iyo qeybaha kale ee bulshada intaas runtii marka laga tago ismarxabeynta iyo ehelnimada iyo muddo anoo magaalada muqdisho ka maqnaa inta badan talooyinku waxay u badnaayeen marxaladan miisaanka ee leedahay in la siiyo dalka danihiisa si dhow looga hadlo mar walbana runtii annaga waxaan ku celcelinaynay khaasatan puntland ku celcelinaysay inay halka u timid in wax la isla ogol yahay oo wadar ogol ah la gaaro oo runtii saldhig u ah in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed hadda la hayo iyo midda amni ee jirta sidoo kaleeto tanaasul u yimaado mar walbana waxa danta dalka ay tahay mar walba laga hormariyo aragti kasta oo ama qof ama state gaara uu qabo taasaana runtii saldhig ah waxaan ku faraxsannahay kulamadii aan madaxweynaha la yeelanay inay intooda badnayd ay mabaadi'daas ka duulaysay oo aan aad runtii uga mahad celinayo inuu si wanaagsan uu noo qaabilay una soo dhaweeyey ra'yiyada aan ismeydaarsanay waxaan rajaynaynaa madaxda dowladaha xubnaha ka mid ah ee saddexda ah ee hadda runtii madaxweyne waare magaalada muqdisho ku sugan yahay laakiin labada madaxweyne kale ee shirkii ka qayb galay galmudug 3 inay halka isugu wada yimaadaan oo si waafi ah wixii soo qabsoomay iyo waxa dhiman aan uga wada hadalno si wax la isla ogol yahay oo midaysan ee halka u soo baxdo waxaan sidoo kale halka ka mahad celinayaa kulamada aan la yeelanay madaxda siyaasadeed iyo madaxweynayaashii hore iyo madaxda xisbiyada qaybtood oo aan ku booqanay maaragtay deegaanadooda iyo shir ballaaran oo maanta aniga axmed madoobe lagu soo dhaweeyey runtii magaaladan oo labadeennaba aan socdaal shaqo u joognay inkastoo magaalooyadeenni ay tahay oo magaaladii weliba si gaara aniga ii taabanayso magaaladii aan ku dhashay kusoo barbaaray waqtigayga intii ugu macaanayd dhallinyarnimadeeda dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed magaaladan uga baxay marka marxaladahaas faraha badan intii dambe oo burburkana magaalo aan si dhow ula socday oo aan maaragtay howlo kala duwan u joogay mar ganacsi u joogay mar xildhibaanka ah mar wasiirka ah intaas oo dhan si gaara ayay saameyn gaara igu leedahay waxaan uga mahad celinayaa dadka magaalada khaasatan maayarka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir uu horeeyo oo soo dhaweynteennii runtii hormuud ka ahaa iyo ururada bulshada iyo qeybaha kala duwan uga horeeyaan haweenka iyo dhallinyarada oo ay runtii soo dhaweynta iyo marxabeynta ay muddadii aan joognay ay si wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kala duwan ee dalkan joogto waxaan rajaynaynaa muddada halka la joogo inay Soomaali wax weyn ay u qabsoomin maalmihii u dambeeyay waxa aad idaacadaha uga baxayay in imtixaamadii runtii Puntland ay ka digi jirtay oo centralized ka ahaa
in sidii laga filahay si ka duwan ay ka soo baxday oo arday aad u fara badan oo weliba gobolka banaadir ah la yiri waa ay dhacday xaqiiqada marka loo dugdugo Soomaalidu waa iska warqabtaa weliba aanu dad tacliinta aad uga warqabaan ahay magaalada Muqdisho maadaama ay magaalada caasimadda ahayd magaalo weyn ay tahay hay-adaha iyo dowladaha deeqaha biyo xooggeeda ay joogaan waa magaalada xagga tacliinta tay ahaan ugu fiican jaamacadaha ugu badan baa yaalla iskuulaadka ugu badan baa ku yaalla macallimiinta ugu fiican baa joogta runtii dhaqaalaha tacliinta adduunka ku bixiyo xooggoodu magaalada Muqdisho buu galaa waxaa dabiici ah oo magaaladan Muqdisho ardada ka soo baxda ayaa mar walba ahaan jirtay ardada ugu badan inta badan deeqaha dibadda hela haddii tartan imtixaan la galayo iyo haddii kaleetaba maadaama ay u dhowaayeen waxa ay muujinaysaa tallaabadii u horreysay oo la yidhi imtixaamadii baa centralized laga dhigay cilladda ka soo baxday annagu waa aadaan u dareemayna maxaa yeelay imkaaniyaadka dowladdu ay leedahay iyo dowladdu siday u dhisan tahay structure ahaan suuragal ma aha inay tiraahdo dalka oo dhan ayaan imtixaamadiisa si daqiiqa ula soconaya oo u haynaya wasiirka waxbarashada hadda ka hor mar uu Puntland eedeynay wuxuu yidhi imtixaan aan ka warqabin shahaado suurka ma noqon karo waxaan hubaa waxa maanta soo baxay natiijada soo baxay inuu wax badan ka warqabin gobollada natiijada ka soo baxday oon ognahay gobollada qaybtood COVID-19 inuu jiray una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen natiijada ka soo baxday natiijo sax inay ahayn baan anigu u maleynaya waxa marka meesha imaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka imaan kartaa marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardada Soomaaliyeed oo dhan ay habboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan maadaama muddo badan ay soo halgamayeen wax soo baranayeen weliba waxaa la rabaa marka xaaladaha kala dhacaan adduunka oo dhan ka dhacday waxaa jira hadda COVID-19 markuu dhacay iskuulaadkii oo dhan waa la xiray ardada xoogooda evaluation baa lagu sameeyay marka la fiiriyo imtixaamadooda horeeto waxaa loo qiimeeyay performance-gooda horeeto oo darajooyinka lagu siiyay wadamo badan methodology-gaasi qaateen marka in Soomaaliya oo maanta u baahan ardaygii oo runtii dowladda in uu dowladdu ay ardayga wax siiso oo tacliintiisa siiso iska badaaye iskuulada ama dowlad ha ahaadaan ama private ha ahaadaan waalidiintu iyaga lacag ku bixiyo xaqiiqada jirta waa saas ardada iskuulaadku waxay ku socdaan ama dowladdu barka ha dhiso gacanta ku hayso fiiga ardada ay bixiyaan ayaa saldhig u ah kab waa jira marka ardaygii isaga kharashkiisa la baxayay dadaalka badan bixinayay in natiijo uusan ku farxin ay soo baxdo waxa ay keenaysaa nidaamka maamulka ee wasaaradda uu u dhisan yahay in wax lagu noqdo weeye waxaan ugu baaqayaa maalin dhaweed ku faraxsanahay in maamulka waxbarashada ee gobolka Banaadir uu ku wareejiyeen gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa gobol walba tacliintiisa in lagu wareejiyo oo tacliintiisu iyaga ay maamulaan state walba performance-ga iyo kormeerka iyo kor u qaadida manhajka waa wax mar walba laga sugayo madaxda dowladda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer state haddii la rabo in manaahijta la mideeyo hab kale oo loo maamulaa jirta loo mideeyo waxbaridda iyo manaahijta midayntooda iyo imtixaanka qaadida iyo shahaadasiinta dadku waa inay kala bartaan marka waxaan aad u rajaynaynaa in loo dhaga nuglaado nidaamka federalismka ee dalku qaatay kelmadda ah imtixaan centralized ah oo macallin aan war u haynin waxa ka socda jubbada hoose ama jubbada dhexe ama gedo ama degaano aysan gacantaba ku hayn oo shabaab hayo inay dhahaan imtixaamaan ka soo qaadnoo saxnay oo darajooyinkaasaa la baxshay runtii waa arrin ku ah shacabka Soomaaliyeed in loo sheego ceeb ku ah wey wixii aan jirin in dadka loo sheego ma rabo waxaan rabaa dowladda iyadoo mararka qaarkood jecel in ay dalka oo dhan xukunto sida ay jeceshahay waa ay gaari doontaa laakiin waxaa la rabaa mar walba dadkeeda inay xaqiiqada kula noolaato khaasatan dhinaca tacliinta iyo adeegyada bulshada oo 90% iyo ka badan dowladaha ama heer federaal ha noqdaan ama heer state ahana aan gacanteena ku jirin Puntland baa ugu fiican waxay ku salaysan yihiin taageerada nooga timaada hay'adaha caalamiga iyo dadka bulshada ah ee waxa ka yimaada miisaaniyadda dowladda Puntland ee canshuurta lagu qaado inta ka gaarta aad bay u kooban tahay xaqiiqda marka loo hadlo meelaha kale ma jiraan sida aan ka warqabo marka waxaan rajaynayaa arrimahaas in aan la siyaasadayn dhinaca tacliinta dhinaca deeqaha waxbarashada imtixaan centralized aan qaadno sida loo kala buundan badan yahay loo qaybinayo sidaas sax maaha
waxaa la rabaa kootooyinka isteedyada iyo dadku sida ay maarata iskuullada yihiin in loogu qaybiyo qiimeyntoodana isteed walba siduu u qiimeeyey ardadiisa ee lagu jaangooyay waxaan rajaynayaa in deeqaha waxbarashada aan la siyaasadeen waxaan aada u rajaynayaa deeqaha dhaqaalaha ee dalka ka soo gala inaan la curyaamin waxaan rabaa maanta inaan halka sheego waxaad ogtihiin muddo badan deyn cafis ayaa dalka ka socotay deyntaa la cafinayay waxay lahayd procedure waxa ay markii ugu horreysay ku guuleysatay dowladda Soomaaliya in la helo budget support runtii bangiga adduunka uu Soomaaliya soo gaarsiiyo loo qaybiyo isteedyada arrintaas waxaan rajaynayaa wasaaradda maaliyaddu ma rabo inaan wax badan halka sheego laakiin waxaan rabaa inaan bulshada u sheego lacagihii loogu talagalay budget support ee dalka soo galay ee loogu talagalay inay isteedyada gaaraan inay halka ku xaniban yihiin iyadoo lacagtii oo dhan ay bangiga dhexe halka taalo wasaaradda maaliyadda waxaan rajaynayaa si hoosaa marar badan mas-uuliyiinta wasaaraddu ugu sheegeen ee isteedyada lacagahaas waxay halis ku noqon doontaa nidaamkii muddada laga soo shaqaynayay in mar labaad aaminkiina laga baxo marka waxaan rajaynayaa sida loo aaminay hay-adaheena maaliga ah ee heer federaal iyo heer state in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo inay halkaa turxaan ka timaado waa dhici kartaa in arrimo farsamo ee mararka qaarkood hakad u galaan laakiin anigu inta aan ka warqabo farsamo lacag in loo transfer gareeyo hadda jirta ma jirto waxaan rajaynayaa arrintaas in wasaaradda maaliyadda ee heer federaal ay xil gaar iska saarto oo ay arrintaas sida uga habboon sidii loogu talagalay ay u bixiso maxaa yeelay hay-adihii iyo dowladihii waxaan ka soo shaqeeyey runtii aad bay noo weydiiyeen waa inay ka xun yihiin inay saas dhacdo waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed khaladaad iyaga ka yimid hadda kadib inuu nidaamkooda dowladeed uu dhaawac gaarsiin waxaan ka mahad celinayaa runtii guud ahaan muddadii hadda aan Muqdisho joogay dowladda federaalka ah heer wasiir iyo heer xildhibaano iyo shacabka magaalada Muqdishoba runtii sida diiranayd iyo habsamada lahayd muddadii aan joognay ee runtii noo marxabeeyeen iyo noola wadaageen dareenada siyaasiga ee jirta waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan rajaynayaa doorasho waqtigeeda ku dhacda oo si nabdoon ku dhacda oo la isla ogol yahay oo dalka horumarka siyaasadeed ee hore u soo socday wax ku darta aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu